Maalin aan fogeyn, anigoo jiraad iska akhrisanaya, waxaa indhahayga soo jiitay sheekada shaashadii ugu weyneed ee la isku laabi karo oo dhowaan la sameeyay. Waa laptopka ZenBook 17 Fold oo ay shirkadda Asus soo saartay horaantii sanadkan, bilaha soo aadanna suuqyada ku baahi doona. Assalaamu calaykum, waxaan ahay Salaaxudiin Soomaali. Haddii aad tahay markii kuugu horreysay aan internetka isku aragno, waxaan soo gudbiyaa barnaamijyo la xiriira dhaqaalaha, tiknoolajiyadda iyo ganacsiyada online-ka ah. Waxaan isku dayaa inaan kusoo gudbiyo qaab fudud oo leh tusaalayaal la fahmi karo. ZenBook 17 Fold waa laptopkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee ilaa hadda la sameeyay. Horey waxaa u jiray telefoonno isku laabmi kara shaashadooda oo ay sameeyeen shirkadaha tech-ga qaarkood sida Samsung, balse waxa oo dhan waxay u muuqataa in hadda la isla dhaafay oo laptop shaashadiisa isku laabmayso ayaan maanta sheekadiisa haynaa. Waxaa sidoo kale aad ii xiise geliyay awoodaha cajiibka ah ee laptopkan uu leeyahay, oo sida aan filayo qof kasta oo tech-ga xiiseeya ama ku dhex jiraba haddii uu maqlo xiise gelinaya. Waxba yaana warka kugu daalin ee aan isla eegno faahfaahin ku saabsan laptopkan cusub iyo waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato. ZenBook 17 Fold waxa uu leeyahay shaashad screen touch ah ama beersalax sida dadka qaarkii u yaqaanaan, oo isku laabmaysa, cabbirkeeduna dhan yahay 17.3 inch. Aspect ratio-ha shaashadan waa 4/3 marka aad kaligareysona waxa uu kugu jawaabayaa wax ka yar 0.3 millisecond. Hadda ma ahan second, waa millisecond. Halka resolution-ka shaashadu uu dhan yahay 2560 ilaa 1920 pixel. Marka la isku laabo, waxa aad u muuqanaysaa qof wata laptop 12.5 inchi ah, culayskiisuna waa 1.5 kilogram oo keliya. Marka la kala bixiyona, balliciisu waxa uu dhan yahay 8.7 millimeter, halka marka la isku laabana uu balliciisu dhan yahay ku dhawaad 7.4 millimeter. Jir ahaan, waxa uu ka kooban yahay biraha aluminium iyo magnesium-ta, waxaana ku dahaaran gal leather ah oo qurux ahaan iyo difaac ahaanba ugu xiran. Sidoo kale, waxa uu leeyahay baalal yaryar oo uu ku istaago. Marka uusan isku laabnayn, waxaad u isticmaali kartaa tablet ahaan ama iPad-ka oo kale. Haddii aad isku laabto oo kala bar ku joojiso laabitaanka, kaliya waxa aad saaraysaa keyboard-ka portable-ka ah amaba aan ku dheganayn, kadibna si automatic ah ayay shaashadu dhanka sare ugu wareegaysaa. Laptop caadi ah oo 12.5 inchi ah ayuuna isku beddelayaa. Waadna isku laabi kartaa adiga oo aan ka bixinin keyboard-ka. Waxaa taas ka sii cajiibsan inaad u isticmaali karta desktop ahaan ama kombiyuutarka caadiga ah oo kale. Shaashadda ayaad kala bixinaysaa adiga oo ballac u jiifinaya, kadibna keyboard-ka ayaad ag dhigaysaa. Sidaas ayaadna ugu beddeshay desktop caadi ah. Intaa marka aan ka imaano, awoodda laptopkan, tabletkan ama desktopkan, midkaad rabto ugu yeero, aad ayay u sarreysaa. Waayo waxa uu leeyahay tilmaamaha soo socda. Waa Core i7 Generation 12 ah, halka RAM-kiisu yahay 16 GB oo DDR5 ah. Storage-kiisuna waa 1 TB ama 1 TB oo SSD ah, iyo sidoo kale Intel Iris Graphics. Bateriga ayaaba intaas ka dhicin oo ku haynaya 9 ilaa 10 saacadood oo xiriir ah, waxayna ku xiran tahay shaqada aad ku qabanayso. Qof kasta oo kombiyuutarka wax uun ka yaqaana waxa uu dareemi karaa awoodda uu yeelan karo laptopka intaas oo dhan kulansaday runtii. Waxaa intaas sii dheer in godadka xargaha sida charger-ka oo kale ay dhammaan yihiin Type C, oo ah nooca hadda shirkadaha tech-ga ay isla qaateen badiba in loo sameeyo aaladaha. Qiimaha haddii aan ka hadalno, aad buu u kulul yahay, wuxuuna suuqyada ku yimaaday $3,500. Haddiise loo eego awooddiisa iyo isticmaalkiisa kala duwan, runtii wuu u qalmaa. Adiga daawada maxaad is leedahay? Ma u qalmaa qiimahaas? Qaybta commentiga nagula wadaag. Mahadsanid.